السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وأنا وناكسن صاحبي أنا ملك سجوكتان بسروا هذا حكسيد الشو حدي أيتام مركي كوغو الرئيسي آسوا بوقة كنال كان فضل سبسكرايب نصر وقنبال الكفرو سادو يشم مقالة دينا بسروا هذا قيبت كوبات تحانها الرماء بالشدة waxaan ku soo qaadan doonaa bilowga qaangaarnimada iyo raadinta haasaawe. Soomaalidu waxay tiraahdaa geela dambe geela hore saanqaadkiisa ayuu leeyahay. waxaan ula jeedaa waa dhaqan soo jireen ah wiilka ama gabarta bilowga fahanka nolosha ay bilaabaan. xudxudashada ama haasaawa hadba waa sidaad u taqaanide. marka aan bal aragno jacaylka koor guurka waa mid noocee ah. waxaa bilaabata sheeko iyo haasaawe dhexmarta labada qof kaasi oo qaato muddo malaha waqti dheer ayuu qaadan karaa oo maxadidno. sababtana waxay tahay xilliga bilowga haasaawaha wiilka oo ah kan inta badan gacantiisa la dhowraayo ama laga sugayo inuu xal u helo reerkan cusub. waxaa laga yaabaa inuusan u diyaarsanayn oo aan ula jeedo inuusan haysan shaqo ama meel uu ku dabari karo howlihiisa horyaalo. balse mararka qaar waxaa dhacdo muddo kadib in si waxun loo dhameeyo kol waalidka dhali wiilka ay yeelaan qoyskaas cusub isla markaana gabarta lagu qanciyo reerka wiilka ay ka tirsanaato maadaama uusan awood u lahayn inuu gees u dago oo uu reerkiisa wax u qabto. anka reerkaasi waxa adkaato inay yaraato inuu xasilo reerkaasi oo uu dago isla markaana uu gaar heerkii laga filayay. sababtuna waxay noqon kartaa dhowr shay in ay ku soo koobnaato inuu reerkaasi uusan sii dhisnaanin. midda koobaad waxay tahay shaqo la'aanta haysata wiilkaasi xur uma noqon karo noloshiisa iyo qancinta dhanka dhaqaale ee reerkiisa. sidaa darteed inantu waxa ay dareemaysaa culays weyn iyo xurmad darro ama xurmo la'aan iyo inay weli heli karin waxa ay markaasi rabto. laakiin haddii ninkeeda uu shaqayn lahaa waxay heli lahayd taas beddelkeeda oo waxa ay u baahato inay isaga ka hesho. qodobka labaad ee reerkaasi ay adkaan doonto inuu sii taagnaado waxaa ka mid ah khibrad yaraanta wiilka iyo gabarta taasi oo sabab u noqon karto inuu sabarka iyo dulqaadka yaraado. waana mid ka mid ah kuwa sababa inuu reerkaasi uusan sii taagnaan karin. qodobka saddexaad daawade ee aan filayo inuu noqon doono midka uu saameynta badan isla markaana ah qodobkeena ugu dambeeya taxanaha sheekadeenna ayaa waxa uu noqon karaa dabeecadaha saxda ah ee labada qof oo la ogaado kadib guurkooda. oo maxay tahay waxaan u leeyahay marka haasaawaha lagu jiray qof kasta si uu u ahaanto qofka kale waxa uu ku dadaali jiray soo jiidasho iyo hadallo macaan taasi oo qayb ka ahayd jacaylka. balse nolosha dhabta marka ay timaado waxay u baahan tahay ku dhaqan iyo ilaalin. haddii la waayana waxay noqonaysaa caqabada ugu weyn ee uu ku damo reerkaasi. ma aragtay guriga ku damay caqabadahaasi haddii jirto kuwa kalena nala wadaag la soco qaybteena xigta.